barnaamijkani marnaba ma dhiirigelinayo jacaylka guurka ka hor. waa hordhaca xalqada 14aad. rag fara badan baa waxaa laga yaabaa inay ku doodaan haweenka wax badan baa ka naqaana xogta haweenka oo dhan anaga na weydiiya, balse waxaad arkaysaa hadda in noloshooda qoyska marka la eego inay wax badan ka khaldan yihiin. haddii uu xog hayo maxaa noloshooda qoyska khaladay, haddii uu xog haweenkii ka hayo maxaa noloshooda qoyska khaladay. ma laga yaabaa isbedelada tirada badan leh iyo xaaladaha kala guur ee ay galaan haweenku sida isbedelka caadada, isbedelka uurka, isbedelka dhalmada iyo isbedelka marka uu dhiigu ka joogsado inay saameyn ku yeelan karto noloshooda qoyska, inay sidoo kale saameyn ku yeelan karto kobcinta jacaylka iyo habsami socodka dareenada jidhka la shaqeeyo. ma habboon tahay in uu ninku aqoon u yeesho isbedelada tirada badan leh ee haweenka soo food saari kara si uu u badbaadsado noloshooda qoyska? sidee ayay tahay inuu ninku ula macaamiloodo haddii uu xaaladan oo kale ku arko haweenka? mudanayaal iyo marweyn waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aqoonta jacaylka, kaas oo aad ka heli doontaan dhammaan jawaabaha su-aalaha aynu kor kusoo xusno. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta waxaynu ka hadli doonaa jacaylka iyo haweenka. kama hadli doonno falsafada haweenka iyo kala duwanaanshiyaha ragga iyo dumarka, balse waxaynu ka hadli doonaa marxaladaha kala duwan ee ay maraan haweenku iyo jacaylku saameynta uu ku yeelan karo. tan waa mid muhiim u ah ninku inuu aqoon u sii yeesho intaanu guursanin ka hor. gabadhana waa muhiim inay aqoon u yeelato intaanay guursanin ka hor, waayo gabadhu waxay martaa maraaxil kala duwan taasoo saameyn ku yeelata habdhaqankeedii iyo jacaylkii ay guriga ku haysay intaba. guud ahaan dumarka waxa ay maraan 4 isbedel oo kala duwan kaas oo saameyn kulul ku yeesho jacaylka. isbedelada waxaa ka mid ah isbedelka koowaad oo ah isbedelka caadada, isbedelka labaad oo ah isbedelka uurka, isbedelka saddexaad oo ah isbedelka umusha iyo isbedelka afraad oo ah isbedelka marka uu dhiiggu ka istaago. haddii aynu soo qaadano isbedelka koowaad oo ah isbedelka dhiigga wiiga ama dhiigga caadada, inantu marka ay qaan gaadho waxaa u bilaabma wax loo yaqaano caado. caadadu waa maxay? caadadu waxa weeyaan waa isbedel hormoon oo ku dhaca gabadha kaasoo abuura in gidaarkeeda rixmku uu soo dumo dabeetana isagoo hab dhiig oo kale uu ka soo baxo. kaa waxaa la yidhahaa caado. haddaba gabadhu marka ay gasho marxaladda noocaas waxaa ku dhaca 2 isbedel. isbedelka koowaad waxa weeye waa isbedel xagga jidhka, tusaale ahaan dhabar xanuun, maxog xanuun, madax xanuun iyo daal fara badan. isbedelka kale ku dhaca waxa weeye waa isbedel nafsiyeed, kaasoo ah inay dareemaan welwel, walbahaar, diiqad, cadho degdega iyo wax la mid ah. deetana isbedelka ku dhacay qofka waxaa laga yaabaa in hadhow nolosha qoyska labadii qof ee wada joogay ay saameyn ku yeelato, oo waxaa laga yaabaa ninkii in marka uu ku arko gabadha dabeecaddeedii oo isbedeshay inuu idhaahdo gabadhii maxaa ku dhacay, gabadh fiican bay ahayd, maxay u diiqadoonaysaa, maxay hadalkay uga jeesanaysaa, ma markii la guursaday bay saa u dhaqmaysaa iyo wax la mid ah. balse isma oga inantii waxaa ku dhacay isbedel gudeed kaasoo abuuray in habsami socodkeedii iyo habdhaqankeedii uu isbedelo. taasna haddii aanu ninku la fahmin oo aanu hadhow hab kolba say u dhaqmaysa aanu la dhaqmin, waxay abuuraysaa in arrintaas ay abuuranto khilaaf joogta, taas oo marka dambena burburiso qoyska. mararka qaarkood waxaa dhacda rag fara badan inaanay arrintan aqoon u lahayn, deetana waxaa laga yaabaa gabadhii marka ay gasho xaalad werwer iyo diiqad iyo cadho degdeg ah inuu isna la werwero oo la diiqadoodo, deetana ay arrintaasi ay sababto inuu sii kordho siina naxnaxa mushkiladii. arrintaas marka waxaa laga yaabaa iyada lafteeda inay burburiso qoyska. marka waa u muhiim ninka in uu aqoon u yeesho nolosha qoyska, gaar ahaan isbedelada tirada badan leh ee ku dhaca haweenka si ay u badbaadaan jacaylkooda iyo sidoo kale si ay u badbaadaan qoyskooda. isbedelka labaad ee dumarka ku dhaca iyadana waxa weeye waa isbedelka uurka. gabadhu marka ay u qaado waxaa ku dhaca isbedel khalkhal nafsiyeed, taasoo ku abuurta in gabadha habsami socodkeedii iyo sidii markii hore ay u dhaqmi jirtay ay isbedesho. si aad arrinta ila fahantaan waxaynu kala qaybin doonaa 3 qaybood. qaybta koowaad waa 3 bilood ee ugu horeeya ee gabadha uurka leedahay, qaybta labaad waa 3 bilood ee dhexe ee gabadha uurka leedahay, qaybta saddexaadna waxa weeye 3 bilood ee dambe ee gabadha uurka leedahay. inta badan gabadha cudurrada nafsigu waxa ay ku badan yihiin 3 bilood ee hore oo ah qaybta koowaad iyo 3 bilood ee dambe oo ah qaybta saddexaad. waxaa jira lamaano fara badan oo ubad isku leh oo kala tegay sanadkii u horeeyayba. sababtu wax kale ma aha. sababtu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa mid ka mid ah inay tahay in gabadhii ay ku jirtay marxaladdii 3 bilood ee ugu horeeyay, 3 bilood ee ugu horeeyay oo ay gabadhu ka diiqad iyo werwer iyo xasilooni darro badan tahay marka la barbardhigo ayaamaha kale. deetana taasu ay sabab u noqoto in ay ninkii ka cadhaysiiso, deetana ay taasu marka dambena sabab u noqoto in labadii qof ay kala tagaan. ninkii isagoo ku doodaya waa maxay gabadhan isbedelka badan la timi, berigii hore gabadhu sidan ma ahayn. laakiin arrintaas waa arrin khalad oo waxay ahayd ninku inuu dabeecadahan sii barto intaanu guursanin ka hor. mushkiladayna haystaa waxa weeye haddii aynu Soomaali nahay waynu isku guursanaa, waxay ka dhigan tahay nin intuu yidhi ganacsi baan bilaabaya balse aan garanayn sugeynta, isku dhafashada, isu qaybinta. tanuna waa la mid un. waa muhiim markaa ninku weliba gaar ahaan ninku inuu dabeecadahan isbedelaya uu aqoon sii yeesho si hadhow marka ay wax isbedelaan uu la qabsado qorshayaasheedana uu la yeesho. isbedelka saddexaad ee gabadha ku dhaca iyaduna waxa weeye waa isbedelka marka ay gabadhu umusho. marka ay dumarku umulaan maxaa dhaca? 50% iyo wax ka badanba hadii goor waxay dareemaan khalkhal nafsiyeed oo fudud. marka khalkhalkan nafsiyeed ee fudud isagu dawo ma baahna, wuxuu u baahan yahay in dejin waqti badan ma qaato.
mararka qaarkood waxaa dhacda gabadhii oo ku jirta khalkhalka nafsiyeed in uu ninku yidhaahdo maxaa gabadhi ka siiya, maxay la diiqadanaysaa, maxaa haysta gabadha waan in farxaynin, ilmo ayaaba inoo dhashay. balse ninku waxa uu garan lahay oo ka khaldanayd in gabadhu marka ay marxaladan ku jirto inay dareento diiqad iyo khalkhal nafsiyeed oo fudud, taasuna ay ka dhabaanayso muddo kadib, taana ay tahay ninku markaa inuu la qabsado uguna dulqaato. dumarka qaarkood iyagana waxaa ku dhaca in khalkhalka nafsiyeed uu isku bedelo murugo qaata muddo dhowra ilaa sanad wax ka yar. taa lafteedana waxaa muhiim ah haddii uu ninku dabeecadaha ku arkay inuu dhakhtarka u geeyo si uu arrintaa uga daweeyo. sidoo kale mararka qaarkood waxaa dhacda in dumarka qaarkood ay galaan marxalad diiqad joogto ah iyo khalkhal nafsiyeed oo ku abuurta baaxaadeg iyo jahwareer joogto ah. markaloo kalena waxaa muhiim ah in uu ninku iyada lafteedana uu dhakhtarka la kulasiiyo si uu u daweeyo. mararka qaarkood waxaa dhacda in dumarka qaarkood ay galaan xaalad caqliyeed sidii waali oo kale. waxaa laga yaabaa kunkii dumaraba in hal dumar oo kamid ah ay galaan mararka qaarkood xaalad waaliya, taas oo ah inay gabadhu gebigeeduba ay nacdo ilmihii dhashay, inay tiraahdo ilmahan waa ilmo xun oo isku dayday inay dishaba. markaasoo kale waxaa iyadana lagula tacaalaa in dhakhtarka la geeyo, ilmahana inta hore oo dhan waa laga ilaaliya. marxaladda noocaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waalida kumeelgaadhka, waana mid ay maraan dumarada qaarkood oo dumarka oo dhan ma wada maraan, laakiin kunkiiba waxaa laga yaabaa mid ama 3 in laga helo inay galaan marxalad ah waali kumeel gaadha oo la xidhiidha xagga caqliga. waan ka xumahay inaan sidan oo dhan u sharaxo isbedelada tirada badan leh ee ku dhaca haweenka, balse waa mid muhiim ah oo ay tahay in laga hadlo, waa mid muhiim ah oo ay tahay inay rag wax badan ka ogaadaan si ay noloshooda qoyska u qaabeeyaan, waa mid muhiim ah oo ay tahay inay dumarku wax badan ka ogaadaan si ay noloshooda qoyska u badbaadsadaan, si sidoo kalena ay u badbaadsadaan jacaylkoodii kobcayay laga yaabaa inuu hoos u soo dhacay. waxaynu soo sheegnay in ay haweenku galaan marxalado kala guur, marxaladaha kala guur oo saameyn ku yeesha jacaylka. marxaladaha waxaynu soo sheegnay inuu yahay kow marxaladda dhiigga caadada, sidoo kale waxaynu soo sheegnay marxaladda uurka, sidoo kale waxaynu soo sheegnay oo aynu soo sharaxnay marxaladda gabadhu marka ay umusho iyo isbedelka jireed ee ku dhaca iyo sida ay tahay loola macaamuloodo. haddii aan si fiican loola macaamuloona ay arrintaas saameynayso noloshooda qoyska. iminkan waxaynu ka hadlaynaa isbedelka ku dhaca gabadha marka uu dhiigga ka istaago. gabadhu markay da ahaan weynaato ay gaadho 40 ilaa 45 waxaa ka istaaga dhiigga. istaaga uu dhiiggu istaagay waxa ay sababtaa in gabadha uu ku dhaco isbedel nafsiyeed. isbedelka nafsiyeed ee ku dhaca waxaa kamid ah inay gabadhu dareento warwar, walbahaar, inay diiqad badan dareento, inay xaalad deganaanshiyo la-aan dareento. deetana waxaa laga yaabaa mararka qaarkood ninku haddii aanu la fahmin gabadhan inay gasho xaalad kala guur uu isna warwaro, uu isna haddii goor isweydiiyo su-aalaha gabadhii maxaa ku dhacay, gabadhu 20 sano ayaa soo qabtay, 20kii sano ugu dambeeyay gabadh fiican bay ahayd, maxaa iminka ka khaldamay. marka waxaa laga yaabaa isweydiinta tirada badan leh iyo warwarka uu warwarsan yahay inay arrintii iyo khilaafkii dhacay ee aan waxba ahayn ay ka dhigto wax weyn oo ay naxnaaxiso. deetana waxaad aragtaa mararka qaarkood qoysas tiro badan leh oo isqabay 20 sano inay kala tagaan. mid kamid ah waxyaabaha ay ku kala tagaan waxaa kamid ah gabadhii oo gashay xaalad kala guur oo ninkiina la fahmi waayo. marka waxaa la gudboon markan oo kale ninku inuu la dareemo xaaladan kala guur ay gashay. waxaa muhiim ah ninku intaanu guursan ka hor inuu aqoon u yeesho in marka da'dan la gaadho ay marxalad kala guur ka karto gabadhu. sidoo kale waxaa muhiim ah gabadha lafteedu inay aqoon u yeelato marka ay weynaato inay geli doonto marxalad noocan oo kale ah. tanna waxa weeye waa mid kamid ah waxyaabaha ay nolosha qoyska ku badbaadayso. markan oo kale ninka waxaa looga baahan yahay inuu dulqaadkiisu aad u sareeyo, inuu noqdo qof isxakameyn kara, inuu nolosha u fududeeyo, inaanu diiqad badan kusii abuurin, in aanu isagu muujin warwar tiro badan leh. waayo haddii uu isagu muujiyo warwar tiro badan leh waxaa laga yaabaa qofkan kaleetana in uu warwarkiisu kor u kaco, deetana halkaa noloshii qoyska noqoto nolol bila kalgacal iyo raxariisa. markaa guud ahaan waxaa u muhiima ragga inay aqoon u yeeshaan marxaladaha tirada badan leh ee kala guurka ah ee ay gelayaan haweenku si ay hadhow marka ay galaan ay ula dhaqmaan noloshooda qoyskana u badbaadsadaan. habsami u socodka nolosha qoyska ay noqoto mid sugan oo aan isbedbedelin. haddii goorna nolosha qoyska iyo gurigaas uu noqdo guri reerayn iyo farxad iyo bashbash iyo barwaaqo lagu sugan yahay. marxaladaha aynu soo sheegnay waxay ahayd marxaladda caadada, marxaladda uurka, marxaladda dhalmada, marxaladda uu dhiiggu ka istaago. mararka qaarkood way dhici kartaa in khalkhalo kale oo nafsiyeed ay haweenka ku dhacaan oo ay galaan marxalad kala guur oo kale. tusaale ahaan gabadhu haddii ay tahay gabadh madhalaysa ama may gabadha riximkii laga saaray cilad caafimaad awgeed, waxaa laga yaabaa gabadha in ay hormoon khalkhalaan, deetana gabadhu ay dareento warwarkii iyo warbahaarkii iyo deganaanshiyo la-aantii ay dareemaysay xilligii ay ku jirtay caadada ama xilligii nifaaska oo kale. markaa tanna waxaa laga yaabaa in iyada lafteeda ay ku noqoto caqabad noloshii qoyska, waayo habdhaqankii gabadha ayaa isbedelaya. deetana iyada lafteedana waa muhiim ninku inuu lasii qabsaday ama aqoon usii yeeshay intaanu guursanin ka hor. rag fara badan oo ay ugu badan yihiin abwaanadu ayaa waxaa laga yaabaa inay ku doodaan in ay wax badan ka barteen dabeecadaha haweenka ee tirada badan leh. aniguna waxa aan ku leeyahay waxba kamidaan baran dabeecadaha haweenka ee tirada badan leh, weli wax badan ayaa idin harsan.
daawade aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashadaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido xog muhiim ah oo la xiriira arrimaha jacaylka oo ku soo biirtay akoonkaaga qaybta aqoonta haddaba si aad u daawato xalqad kale oo ka xiiso badan xalqada aad maanta daawatay ugana faa'iidaysto xog cusub oo la xiriira arrimaha jacaylka waxaad like garaysaa page-ka haddii aad page-ka ka daawatay ama waxaad subscribe garaysaa channel-kan YouTube-ka haddii aad YouTube-ka ka daawato